Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay qandho aan kala joogsi lahayn oo qarqaryo wadata, madax xanuun ilaa margiyada gaarsiisan oo sidii korontada oo kale maasa ku qabanayso, calool majiir, shuban, lalabo, matag, daal, tabardarri iyo wareer. Haddii jawaabtu waa tahay casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Astaamaha kore waxaa lagu yaqaanaa cudurka tifowga ama typhoidka, waa caabuq ku dhaca caloosha oo ay keento bakteeriya loo yaqaano Salmonella typhi, una eg sida sawirka ka muuqdo, kadibna haddii aan la daaweyn si dhaqso ah jirka ugu faafta, meel walbana gaari karta, qofkan u dhiman karo. Bakteeriyada keenta tifowga waxaa laga qaadaa cunidda ama cabidda waxyaabaha aan nadaafadooda laga taxadarin. Jeermiska markuu caloosha gaaro wuu ku dhex tarmaa, kadibna difaaca caloosha ayuu afduubtaa, sidaas ayuuna jirka qaybihiisa kale ku gaaraa. Wuxuuna la soo baxaa markaas astaamo kale oo lagu weerari karo haddii bukaanka aan si fiican loo wareysan. Mararka qaar astaamaha oo idil way joogsadaan oo qofku waxba ma dareemo, laakiin wuxuu noqdaa xambaare qarsoon oo cudurka bulshada ku dhex faafiya iyadoon la ogeyn, khaasatan hadduu qofkaasi ka shaqeeyo maqaayadaha ama meelaha cunnada lagu kariyo. Cudurkan siyaabo badan ayaa loo baaraa oo ay ka mid tahay in dheecaanada jirka la beero ama waxa loo yaqaano culture lagu sameeyo si loo xaqiijiyo bakteeriyada cudurka keentay, laakiin maadaama qaabka baaristan ay maalmo u baahan tahay, waa in la sameeyaa baaritaan si degdeg ah loogu ogaan karo inuu cudurka ku hayo. Sidaa awgeed ayaa dhiigga ama saxarada looga baaraa wadamada uu cudurkan ku badan yahay. Ka baarista dhiigga dhibka uu leeyahay waa in xanuunkii isagoon ku hayn uu positive soo sheegi karo, sababtuna waa dhiigga oo laga baaro wax tilmaamayo difaaca jirka uu ka samaystay bakteeriyada Salmonella, waxaasoo loo yaqaano antibody. Marka hadduu tifow horey kuu soo maray, baaritaankan wuxuu sheegayaa inaad cudurka qabtid, tan ayaana sabab ah in qof walba tifow lagu sheego. Marka sida saxda ah waa in saxarada laga baaraa cudurkan, maadaama saxaradu laga arkayo wax tilmaamayo jiritaanka bakteeriyada oo haddii ay ku hayso kaliya uu positive noqonayo, waxaasoo loo yaqaano antigen. Cashar gooni ah ayaan kaga soo hadli doonaa waxa ay kala yihiin antibody antigen markii baaritaan la sameynayo si jahawareerka shaybaarada ka jira ay bulshadu u fahanto. Tifowga daaweyntiisu way sahlan tahay, waxaa loo qaataa antibiotics kaniiniyaal ama cirbado ah muddo 7 maalmood, waxaana lagaga hortagi karaa in nadaafadda lagu dadaalo, gacmaha si joogto ah loo dhaqdo, qofka cuntada ku kariyana laga baaro cudurkan, haddii laga helana laga daaweeyo. Casharkii oo kooban waa intaas. Wixii su'aal ah noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.